oday wax badan u soo joogay oo maalin maalmaha ka mid ahayd la sheekaystay wiil dhalinyaro ah oo daqiiqado ka hor ay ka caraysiyeen rag saaxiibo si uun u ahaayeen. wuxuu odaygii ninkii dhalinyarada ahaa ku waaniyey murti qiimo badan leh. wuxuuse odaygii ninkii dhalinyarada ahaa weydiiyey kolka hore su'aal ahayd, ma taqaanaa 3 aan lala diririn oo ay tahay colaadooda in laga maarmo? ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu yidhi, maya waa kuwaasi. wuxuu yidhi ninkii odayga ahaa, weliga intaad awooddo ka warwareegso inaad foodda isdartaan 3 qof oo kale ah: maangaab, maraan iyo munaafaq. odaygii hadalkiisa wuxuu wiilka u sii raaciyey sharaxaadan: maangaabku ma lahan caqli uu ku xadeeyo waxa idin dhex marayo, waxna ma hambeeyo oo wuxuu kula gelayaa dagaal aan loo baridayin. marnaba garaadkiisa ma soo gasho oraahda ah waa la doogiyey yaa la dacaroon. maangaabka ama isaga ha ku soo maago ama qolo kale ha soo adeegsata in lala dagaalo waa mushkilad dhib badan. maraanku waa qof maskaxiyan u dhaawacan, cid kasta oo la dagaashana way eedaa maadaama uusan lahayn maskax fiyow oo fadhida oo qaadaa dhigi karta dirirta uu galayo, sababta uu galayo iyo halka umuuraha ay u biidhici doonaan. iyadoo ay nagu badan yihiin waalida dhaqanta, haddana waxaa gaf ah oo naftaada aad ka gelayso u bareeridda dirirta ama xifaaltan lala wadaago qof salaafan ama maraan ah. munaafiquse waa uu ka shar badan yahay maangaabka iyo maraanka oo ma lahan meel loogu hagaago colaad iyo nabad toona. heshiis kastoo aad munaafiqa gashaana ma hirgelayo oo ma ahan qof axdi leh. qowl ama xarig qabtana ma lahan. kaaga darane munaafiq wuxuu awood u leeyahay inuu kaala dagaalamo furumo uusan ka dhex muuqanayn. colaadna waxa ugu daran midda munaafiqu uu kuu soo adeegsado maangaabka iyo maraanka iswata. ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu ninkii odayga ahaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee dadka nuucaani ah loola macaamili karo. wuxuuna odaygii ku yidhi, adeer, alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi, واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. oo u samir muxammadow sala allahu calayhi wasallam waxa ay yidhaahdaan oo ugu dheerow iyaga si qurux badan. wuxuu ninkii odayga ahaa ninkii dhallinyarada ahaa u sii raacsiiyey in dagaalka isqaqabsiga ay tahay in laga fogaado. 3 qof uu u sheegayna inay tahay in lala dagaalamo iska daaye ay muhiim tahay in laga fogaado la macaamilkooda iyo in wax salaanta ka